kulanti wanaagsan saaxiibayaal soo dhawaada boggeyna Facebook ee Mnur Official iyo Maxamed Nuur Maxamed waxaan idinka codsanaynaa in aad follow inoo dhahdaan oo aad share ku dartaan muuqaalkan maanta waxaynu ka hadlaynaa mowduuc muhiim ah oo ku saabsan sida aad uga dhigi karto barahaaga bulshada kuwa xadidan waqti fara badan ayaa dabcan kaaga baxa isticmaalka aaladaha kala duwan ee social media ama baraha bulshada haddaba talooyinkan qaado si aad u noqoto qof xadida baraha bulshada ee uu isticmaalo marnaba ha soo gelin baraha bulshada macluumaad shakhsiyan ah oo loo isticmaali karo in shakhsi lagu dabagalo ama lagu aqoonsado tusaale ahaan magaca oo buuxa full name dhalashada ciwaankaada ama taleefankaada mar walba fiiri haddii saaxiibada ama qoyskaadu ay baraha ku soo qorayaan macluumaad adiga kugu saabsan oo aan lagu aamini karin baraha bulshada waxaa suurtagal ah in saaxiibada iyo qoyskaaga ay isla yihiin macluumaadkan waxba uma dhimi karo qofkaas balse runta ay tahay inuu noqdo mid khatar geliya aqoonsigaaga your identity furo in lagu ogeysiiyo haddii boggaaga ama emailkaada la galo adigoo aanan eegin si aad isla markiiba tallaabada kugu habboon aad u qaadato ka fikir inaad isticmaashid 2F1 two-way oo method in password oo kala duwan aad ku isticmaashid baraha bulshada iyo emailkaaga fadlan marnaba ha u isticmaalin passwordkaaga magacyada carruurtaada ciwaankaaga ama telephone numberkaaga waayo waxay sahlaysaa in si fudud lagu daba maro aad uga fikir inta aadan macluumaad bixin adigoo isticmaalayo baraha bulshada ugu dambeyn haddii aad isleedahay adiga noqo kii waxaday ama ku haminayay inaad jabsato xogaha aanan kuwaada ahayn ama raba inuu qof ku xumeeyo baraha bulshada adigoo iska dhigaya qof aadan ahayn fake profile si fiican u fikir waa lagu soo heli karaa si fudud ama Facebook aan jirin isticmaal ama kuwa kale isticmaalka waa qayb ka mid ah talooyinka la siiyo qofka doonayo in sanadkan social media si sharaf leh ugu jiro waxaan ognahay in maalmihii ugu dambeeyay aaladaha kala duwan ee social media ragga iyo dumarka ay ku dhex marayeen hadallo xanaf leh iyo sidoo kale dumarkii oo soo bandhigayo muuqaalo horey ay u soo bandhigi jireen ragga kuwa oo ah in saaxiibo sheeko wadaag ahaa muuqaalo si hoose looga duubay la soo qarxiyo arrintaasi oo social media xilliganba si weyn looga hadal hayo rag odayaal iyo sidoo kale dhalinyaro isugu jira oo ayaga oo siro gooni ah oo aan loogu talagelin social media muuqaal ahaan ugu duubay saaxiibadooda baraha bulshada lagu baahiyay kadibna hadalhayn xooggan ay ka dhalatay dhaqan xumada noocaasi ah ayaa sanadihii ugu dambeeyay social media ku soo badanayay si aad uga fogaatana fadlan raac tallaabooyinkii aan horey kuugu sheegay mahadsanid saaxiibayaal soo dhawaada mar kale boggan Facebook inoo dhaha share followna inoo soo dhaha mahadsanidin